waxaan ku suganahay magaalada madaxda Pretoria ee dalka Koonfur Afrika waxa halkan lagu dilay muwaadin Soomaaliyeed oo kamid ahaa dhalinyarada degan xaafadan ay Soomaalida u badan tahay ee Pretoria West maalmihii la soo dhaafay waxa ku soo badanayay dilalka loo geysto dadka Soomaaliyeed isla habeenkii xalay magaala xeebeedka Cape Town waxa lagu dilay wiil dhalinyaro Soomaali ah Both Elizabeth waxa lagu dilay laba dhalinyaro Soomaali ah waxaad u malaysaa in dilba dil السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون أنا قام مقعوي يا محمد حسن برre وحنا هذه هذا وحنا هاي تعسينا كدر يا حنون بدن ولكن عن النوب وحالا يسحق درا لو قد لي مقالة بريتوريا سود أفريقيا قارهان لا تغسرد هذه هذا وحنا هاي تعسينا وكدر إن دمان مد الصوماليات قارهان ريب بريتوريا نكاس وحنا نادف فرعون سوشيال برشيز كل احتراء إلهي سبحانه وتعالى سمري أيوانها كسي فاميل كيسي صغير كيسي وكتجن إلهي سبحانه وتعالى كوا وسندوات في المين إلهي كديجو دمان مد الصوماليات وحرجين يا هولهاس aad ka u badan oo soo noqnoqday oo dhalinyaro badan in kaga baxday oo aan cidina isweydiin oo mar walba oo ay dhacdo tanoo kale toddobaadka kaliya tacsida la hadal hayo kadibna aan wax ficila wax tala ah wax midnimo ah aan laga muujin waxaan rajeynayaa inaysan dhicin oo uu kan ugu dambeeyo qofkii u dambeeyay oo khayaal inta nooga dhinta inuu ka harno wixii ka dambeeyay inuu ka tashano ka midowno dhammaan South Africa gaar inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun halkan waxaan uga tacsiyeynayaa muwaadin Soomaaliyeed oo lagu dilay magaalada Pretoria caasimada South Africa oo gacan ka xaq daran ay dishay laamaha amnigana wali ayna soo qaban ninkii dilay waxaan ilaahay uga baryaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan u tacsiyeynayaa guud ahaan wadada Soomaaliyeed oo weekend hawl xanuun badan ay ku timid oo maartay dilal fara badan oo isdaba yaala ay maartay isugu xixiyeen gaar ahaan magaalada aan deganahay Pretoria oo xalay lagu dilay walaalkeen Cabdikaafi Cananug oo gacan ka xaq daran dishay marka guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan uga tacsiyeynayaa matana dhibaatada gaar ahaan ehelkii iyo qaraabadii runtii waa geeri xanuun badan oo kala duwan toddobaadkan sida gobolada guud ahaan Pretoria Cape Town BE Johannesburg geeri aad u xanuun badan oo isxigtay baa dadka Soomaaliyeed ku habsatay ilaahina subxaanahu wa ta'aala maarta masiibooyinka dhacaya dadka Soomaaliyeed uga gargaaro runtii mataqaana maarta waa geeriye xanuun badan ragga maarta oo dadka burcada hubaysan oo haybkooda la garanaya ay leynayaan gaar ahaan walaalkeen xalay ugu dambeeyay Cabdikaafi oo Pretoria ku dhintay xaafadda Pretoria West ee Soomaalida oo runtii gacan ka xaq daran dishay welina ilaa hadda aan la xaqiijin booliskuna kiiska gacanta ku hayo waxaan uga tacsiyeynayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ehelkii iyo qaraabadii runtiina xaafadan aan deganahay Soomaalida amnigeeda mataqaana maarta waxa aad عقبت uga jirta waxaan insha Allah qaadan doonaa go'aamo masiiriya challenge Soomaaliya waxaan u reebayaa runtii mataqaana waa in aan waxa wadankan in badan baan deganahay oo muddo hadda mataqaana maartay 30 sano ku dhow wadanka deganahay noloshii aan ku nooleen markii horena wax badan baa iska bedelay oo habkii nololeedkii wadankan amnigiisu aad buu halaabay marka aad fiiriso dadka hadda South Africa ay wadanka degan inta badan hadda isteedyaal la degaya oo dhul xiran baa la degaya waxaana kalifaya amniga ummadda Soomaaliyeed maadaama ay awoodi karin ama ay dayacan tahay matana habka ummaduhu u nool yihiin ay u noolaan karin waxaan kula dardaarmayaa oo fariintan u diray waxa weeyaan inkastaba oo meel degan waa inay matana amnigooda ilaaliyaan waa inay iyagu matana maartay ay gacanta ay amniga ku qabtaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo hadda aad ugu jirta laamaha amniga oo maartay oo nimanka la CBF Police Formka aad bay ugu jiraan meel kastaba inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahi subhanahu wa ta'ala ha u naxariisto walaalihii Soomaaliyeed ee saacadii ugu dambeeyay lagu dilay dalkan South Africa si gaar ah markii magaalada Pretoria xalay lagu dilay walaalkeen Cabdikaafi ilaahay u naxariisto ay walaalihii kalaba waxaan fariinahay halkan aan ka diri lahaa tacsiya u imaanay wiil walaalkeen ah oo Cananug la dhahaa lagu dilay meeshan gacan ka xaq daran aan dishay mana naqaan wax dilay ilaa hadda wax ma la cadeyn karo wax dilay marka saas tacsidaas xanuunka badan nagu dhacday ilaahi ma akhada wala huma aada kullu shay indahu bi ajal musamman waxaan ka tacsiyeynaynaa walaalkeen geerida ku timid Cabdikaafi Cananug Pretoria West lagu dilay eheladii iyo qaraabadii ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan maartay u weydiinaynaa sabar iyo iimaan oo maanta xalay lagu dilay magaalada Pretoria sida hore u maqleyseen Cape Town waxa lagu dilay wiil yar oo 15 jir asagana xalay isbuucii hore laba dhalinyaro aad u yar
oo iyana lagu dilay magaalada la yiraahdo BE dilku waa iska sidaas marka waxaan leenahay intii dhimatay oo dhan Allah u naxariisto inta maartay dhaawaca Allah maartay dhaawacooda bogsiyo qaraabada iyo ehelka iyo dadka Soomaaliyeedna sabir iyo iimaan Allah ka siiyo tiiraanyale uga soo jeedinaya walaalkeen Cabdikaafi oo loo yaqaano Caananuug oo xalay magaalada Pretoria caasimadda Koonfur Afrika lagu dilay gacan ka xaq daranna ay dishay waxaan uga tacsiyeynayaa ehelkii iyo qaraabadii iyo naxariisto walaalkeen dhammaan eheladii iyo qaraabadii uga tagana samir iyo iimaan Ilaahay ka siiyo sida ula socotaan bariyahan dilka wuu badanayaa magaalada Cape Town xalay sidoo kale wiil Soomaali in lagu dilay waa maqashan PE laba wiil oo Soomaali ah sidoo kale in lagu dilay darad chico daradeen umaleynaa inay ahayd marka walaalayaal hala foojignaado waxaa loo baahan yahay falcelin mise Cabdirashiid Xuseen Karaash raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle